kor u kaca lacagta doolarka ah ee suuqyada magaalada Hargeysa ayaa muddooyinkan dambe si weyn looga dareemaya isku beddelka lacagta Soomaaliland iyo lacagta doolarka walow banka Soomaaliland uu saaka soo saaray gaari uu saaran yahay lacagta doolarka isla markaana uu qaybinayo sariflayaasha magaalada Hargeysa isagoo $100 ugu bedelayay 723 oo Soomaaliland shilin ah halka uu waqtigii hore ka ahaa 725 iyadoo wax dhifran oo aynkaasi aanay u dhacaynin talaabada uu banku doonayo inuu hoos ugu dhigo lacagta doolarka ah iyadoo ay ganacsatada suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa Waaheen ay saaka warbaahinta u sheegeen in ay aad uga xun yihiin isla markaana ay diidan yihiin kor u kaca lacagta doolarka ah ee magaalada Hargeysa iyagoo ku sababeeyay inuu ganacsigoodu waqtigan ku jiro khalkhal ayaan wax ka weydiinay gudoomiyaha sariflayaasha ee suuqyada magaalada Hargeysa waxaan weydiinay bal hadda loo qaybiyay sida uu arko Cabdilaahi Cali ayaa sheegay sidan waxa la keenay gaarigii banka oo ka iibinaya sariflayaasha doolarkii waxana weeyaan markuu doolarku yara ka idhaahaba waxa keena qolada banka ayaa keena dibeedna u jabiya dadweynaha ayagoo sicir bararka ilaalinaya waxana weeyaan si fiican ayay maanta nooga iibiyeen sariflayaashina way ka qaateen waxa weeyaan sariflayaashina waxaan farana kolkay dawladdu doolarka ka iibiso in ayakuna si wanaagsan dadka uga iibiyaan oo ay hoos u dhigaan oo aanay sicirka kor u qaadin waxa weeyaan dadaal baa loo baahan yahay cid walba inay dadaashana waa loo baahan yahay dawladdu waxa siisay 7,230 markii horena uu xubarayay 7,250 sabaynta iyo kor u kaca lacagta qalaad ee doolarka ah ee magaalada Hargeysa ayaa dad badan oo noloshoodu ay hooseyso u dhibaato xoog leh uu ku hayaa iyadoo xukuumadda Soomaaliland ee waqtan talada dalka haysana aanay arrintaasi waxba ka ogeyn iyadoo siyaasiyiintu ay ku hirdamayaan loolanka siyaasadeed dhinacyada kuraasta saahate bulshada uu galaaftay isla markaana uu aafeeyay sarifka lacagta doolarka ahi aanay cid dhag jaqla u siinin